Soomaaliya waa la googooyay federal states waa laga rabaa. Liibiya waa la googooyay federal states ma wada noolaan kartaan baa la wada leeyahay. Suudaan waa la googooyay intii soo hadhay haddana hadda lagu sii wadaa. Suuriya hadday kawaanka saarantay. qoladii hore shiicadii waa laga saaray. Imika dheriga loo karinaya. Ilaahay setooda kama dhigo. Imika dheriga loo karinaya in 5 gobol laga dhigo. duwaylaadka markii loo qaybiyaa yuhuud meel laga siiyay marka hore caalamul islaami maanta markaynu eegno waxay joogaan waxay culimadu oran jireen qarni lihana taariikhda Chinese-ka marka laga warramayo qarni taariikhdiisa kamid ah ayay waxay ku sifeeyaan inuu ahaa qarnu lihana qarnigii dullinimada laga soo bilaabo waqtigii lagu qasbayay inay afyuunka qasab ku cabaan 1850 something ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida gabagabadiisii qarniga waxay ku magacaawdeen inuu yahay qarnigii ay dullinimada ku noolaayeen China laakiin hadda waa ka baxeen waxa haddaba qarnigii dullinimada wali ku jira dadka muslimiinta hazayn ama jab iyo dhaawac iyo dhib aad u tiro badan baa gaadhay laga soo bilaabo khilaafadii islaamiga u dambeysay markay duntay xataa intii ay daciifka ahayd ee iska liidatay waa lagaga baqayay muslimiinta waayo xuduudina ma jirin odayga ka madaxda ah hadduu jihaad iclaamiyo muslim ciidda ka badan buu heli karayay sida awgeed may dhicin xataa yuhuud markii meeta la jeedinayay waxaynu yidhaahdeen wuxuun baa la dejin karaa hadduu ama isagu yeelo ama khilaafadu dunto ficlanna markay duntay ee muslimiinta gobol ka dhigeen ee qolo walba xayndaab ku wareejiyeen ayay yuhuuddana inu gooyeen oo yidhaahdeen idinna intaa qaata markaa caalamul islaami markaa waa muddo imika qarni iyo dheeraad maraysa reer galbeed way gumaysanayeen yahuudi waa gumaysanaysay raashenku waa gumaysanayay Chinese-ku waa gumaysanaya hindidu waa gumaysanaysaa booramada yari waa gumaysanaysaa xataa shiica gumaysatay ahlu sunnihi inta marka la soo dhaafo waxa gumaysta hadda xukaam العالم الإسلامي kuwa sheegta oo iyagu siyaasadoo dhanna gacantooda ku koobay dhaqaalahoo dhanna gacantooda ku koobay dadkana xornimadii ka qaaday tabaaciyana u yeeshay inay fi silmi wal harb qaraarkoodu inuu ka guntabo galbeed ilaa xad ay gaadheen iyaguna haddii meel uun islaam ka bidhaamo inay kuwa ugu horeeya la dagaalama iyaguba yihiin waa maqlayseen safiirkii imaaraadka Mareykanka joogay maalintii dhaweyd la wareysanayay wuxuu ku hadlayay isagoo ka hadlaya Suuriya iyo qadiyadeeda wala waxa laga rabaa Suuriya inay dawlad cilmaaniya oo madaxweynuhu aanu xoog badnayn oo xuquuqda aqaliyada systemka wax ka siisa iyaga wuxuu baa u daran meel in xorriyad laga sheego ama bucbuca la yiraahdo al-islaami siyaasi labada uun in la sheegaba iyaga u dhibaa caalamul islaami markaynu guud ahaan eegno waxaynu oran karnaa waa adcaf al-umam al-ana fi al-aalam dunida dadka ku nool waa ummadaha ugu daciifsan maan rabo taariikh badan oo alama inaan ka warramo reer galbeedka inta badan dadku u arkaa laakiin kuwa bariguna ma dhaamaan oo مثلا raashiyada tan 1924 ilaa 1940 waa imisa sannadood 1924 ilaa 1940 waa 16 sannadood 16 sannadood wuxuu qabsaday 4.5 million kilometer square muslim leeyahay 16 sano gudahood ayuu wuxuu qabsaday 4.5 square million miles buu qabsaday bay yidhaahdaan million kilometers
وحدمي وقتها إلى 10,000 مسجد وحري إلى 14,000 ومدرسة وحور رأي ودولكودي كرر مجتمع دنا ومسلمين انت كحر وديك كالي هدي حرمه الشيغانيسا يعني سوفيت يونيون كشان طبعا ودن بوها والراشينكا صدح ودن بلطيقه صدح يوروب طبريقه بلاروسيا تنين كيستيليان يا مولدوفا صدح القوقازيين تا جورجيا يا ارمينيا يا اذربيجان يا شنطه آسيا الوسطى 15 ودن بوها 15 كا ودن 7 ku dhawi waa muslimiin isla markaa imika inta uu gumaystay gudihiisa ku jira 40 qowmiyadood oo muslima ba Russia hadda ku nool gudaheeda 7 gobol oo Russia ka mid ah majority-ga iyagu yihiin marka la isku soo daro waxa la yiraahdaa Stalin oo qurila 12 milyan oo muslimu ayuu hijreeyay oo dhulkoodii ka raray بديلكooda 12 milyan oo raashin u soo dajiyay in badan oo kamidi waa kuwii soo yaacay Shaam iyo caalamka islaami iyo khaliijkan iyo meelaha kan waqtiga hore marka la eego bayda 1932 ila 1934 waa 2 sanadood gudahood 3 milyan oo Turkistaan ah markay Russia iyo China qaybsanayeen Russia 3 milyan oo Turkistaaniin oo intuu raashinkoodii ka qaaday uu China siiyay dabeetana waxay dhahaan 3 milyan baa gaajo u dhintay raashinkii uu ka qaaday oo qura 40 kun uu hijreeyay Grozny iyo wixii uu ka sameeyay si uu baabiyay wada garanaysaan muslimiinta aan ka waramaya shiicana maaha oo muslimiin ahlu sunna wa ahnaf iyo shaafiiciyiin bas muslimiinta oo raashinka gumaystay waa ahnaf iyo shaafiiciyiin sida awgeed ma jeceli wax badan aalamtii muslimka soo gaadhay inaan ka waramo markii Soviet Union kaasi burburayna reer galbeed markii hore caalamka islaami waxay dhahay xorriyad baan idin siinay laakiin min waraa istitar bay ka maamulayeen markii Russia meesha ka baxday si dhaba bay gacanta ugu qabteen oo waka General Wesley Clark وكان تهيسن جري أمريكان أوفيسر وين هانجري دجالدي في فيتنام فرشكو داوعمي سيدي تنشر هذا مريا أو ريتايرة جنرال ويسلي كلارك وكان تهيسن جري وحلي مركي 11 سبتمبر نقول عضي طبعا معلومات كدبان بنتاجن كي بيقولي ورئيسه بحناية أكتوبر 3 2007 كي طبعا معلومات كدبان بيقولي هاي بنتاجن قريقا عيدن كمريكان لوغا طاليو markaasaa waxay ugu yiraahdeen buudi Ciraaq baynu weeraraynaa waan yaabay buudi way baan weydiiyay buudi maxaynu Ciraaq u weeraraynaa ma terroristay link la leeyihiin baan ku yiri bayraay markaasay yiraahdeen maya 11 September wax shaqaa kuma leh hadda maxaa loo weerarayaa baan ku yiri buudi ninkii ila hadlayay sarkaalka wuxuu igu yiri buudi anugu garan maayo dagaalkii Afghanistan baan galay buudi 6 wiig baan maqnaa waan soo noqday markaan soo noqday ayaan janantii la kulmay buu yiri deetana waraaq uu xagga hoose intuu ka soo saaray ayuu wuxuu yiri madaxdu waxay igu yiraahdeen 7 dal oo muslimiin ah la weeraraya 7 dal oo muslimiin ah la weeraraya markaan yiri waa maxay sababtuna sababta anigu bagal ima sheegin buu yiri garan maayo waa 7 waa Ciraaq Syria Lebanon Libya Somalia Sudan إيران تضبطي بهذا والله ويرى وقتي أنا كورمينه يعني تضبط أي شيء إنما تضبط با والله ويرى وقتي قاسي كذب ساشي سويدين تلو حيت هاي هرقل بيتهم حينا قربان تضعفاء ومساكين وحبيين وملع الناس كفردية حيكو فليا ويكو حب بدين دي السودة وحيدا هدان هرقل بيتهم وحي الربان waxay u bixiyeen nimankaasi 7 wadan weeraraya al-fawda al-khallaqa waxay yiraahdeen kaos baanu ka rabnaa meeshatan ama si kale hadaan u tilmaamno waa taqsiim al-muqassam
markii hore Cyprus Beacon waa la googooyo wadamada yar yar baa laga dhigay markii la hubiyay mid waliba inuu iyaga ku xidhan yahay ayaa haddana waa la googooynayaa mar kale ayaa googooyntu soo noqonaysaa oo maxaa laga rabaa waxay leeyihiin waxa la doonayaa inay noqdaan alfawda alkhallaaqa creative chaos waxay yidhaahdaan oo waa maxay macnaheedu waxa weeyaan bay yidhaahdeen decentralization then the government will be the UN bay yidhaahdaan waa in wadannada tan dowladnimadooda la baabiyaa decentralizer laga dhigaa cidda ka talinaysaana waa inay noqotaa UN-ta maanta Soomaaliya ka taliya dowladaynu daynagu markaynu wada hadlayno isu sheeganaa dowlada iyo gobollo iyo waxbaynu sheegnaa dowlad kasta iyo gobol kasta afar wasaaradood oo ka midiba hay'ad UN-ta baa wax siisay hoos tagtaa waxay samayn kartaa ma jirto inay hay'adda ku noqoto mooyaane dhowr wasaaradood UNDP baa u taliya dhowr wasaaradood UNESCO u talisa dhowr wasaaradood Save the Children baa u talisa dhowr wasaaradood kuwa qaxootiga u taliya hay'adka UN-ta ma yiraahdaan meeshan anaga xukunna laakiin afar wasaaradood hay'ad bay ku xidhanto ka taliyaan wadammaan Soomaaliya dacal ila dacal wasaarad kasta afar wasaaradood kasta waxay ku xidhan yihiin hay'ad kuwaasi ka mid ah waa decentralization kay sheegayeen ee ah dabeetana governmentku inuu UN-ta noqdo waxay yidhaahdeen markii hore dowlado centralized ka jiray iminka waa in federaliyad loo bedelaa bay yidhaahdeen federal states Iraq waa la googooyay federal states baa laga rabaa Soomaaliya waa la googooyay federal states baa laga rabaa Liibiya waa la googooyay federal states ma wada noolaan kartaan baa la wada leeyahay Suudaan waa la googooyay intii soo hadhay haddana hadda lagu sii wadaa Suuriya hadday kawaan ka saarantay qoladii hore shiicadii waa laga saaray imika dheriga loo karinaya ilaahay setooda kama dhigo imika dheriga loo karinaya in shan gobol laga dhigo duwaylaadka markii loo qaybiyaa yuhuud meel laga siiyay marka hore imikana marka duwaylaadka loo sii qaybiyo inta hadhaa loogu daraya su'aasha isweydiinta leh wax weeyaan maxay naga rabaan waa maxay waxaynu yeelay naga doonayaan waxay yidhaahdeen reer galbeedku isku dan qurayn oo lama wada dagaalamayo qolo diin bay u dagaalamaysaa oo hay'adkoodan masiixiga iyo saxwadoodan dambe kristanka evangelistku u badan yihiin iyo waxaan oo dhami iyagu diin bay u dagaalamayaan ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا بيتاغين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم كوا سوى الدين قل يكالي وحيود الله يندق على هان وعالم الإسلامي لما الشيبان لقرباه بشر متدربة قف بنا آدم وحلا بران دولة خرج كقبحن هل تصالان نسيو يرو مركي لسكو فري أي بولن وحا كدريري dadko di aqoon-yahanka ahaa waayo lacag badan baa lagu hayaa Yurubta galbeed dabeetana dhakhaatiirtii injineeradii wixii baa Jarmalka u guuray Jarmalka ay lacag badan ka sameynayaan dawladda Poland waxay soo xisaabtay qof walba wixii kaga baxay dabeetana Jarmalka ay ku ashtageysay lacagta inta lagu soo celiyo hadduu dadkii qaatay dadkana soo saaray inta soo kharasha ku baxday dadkana qaadatay soo celi Yurub la isula tagay Jarmalka lagu xukumay inuu lacagta dees ka bixiyo ilaa dadkan dad baa wax bartay iyadoo halka maraysa ayaa Suuriya durbaanka dhabarka laga dhuftay 1 million people oo dhakhaatiir leh oo injineer leh oo wax walba la bay heleen Polishki waxay yiraahdeen ka xaysta dadkiina uma baahnina waxa la helay badilkii oo laga keenay xagee laga keenay Suuriya baa la helay إذا بشر متدربة وأباهين ويدلي وايين دليرو وحوشي سي أباهين مان باور بي أباهين حتى كوان وحقرانين ولو أباهين يقول مان باورا وحكالو عالم الإسلامي يلا خامات رخيصة وحلالية وحمعادين لو باهدية الشدالية everything قتلة بيستين لقصيستو marka qolo aan diin ba iyagu rumaysaneen iyagu wax fuula dagaalamayaan mentality-ga ah dhaqaalay u dagaalamayaan qoliyo kale
waxay caalamul islaami ula dagaalamayaan geopolitics waxay u arkaan mantaqadan cidda xukunta inay dunida xukumi karto حتى هذو دقالة هنك مارمو وحار كان بتقدم مامل كده ويوحي ورو الإنجليز تو بيد check points كوا دملهن ودنا ده مثل السوق اللي يلا قالوا واحد هذا دنيا السيدات check point بكويا لا تضبع عالم الإسلام كويا لا كبنا مكانال كويا الله قرا أيها كبحسن انت كله laba turkiga ku taala mid waa jabal tariq mid waa kan ku yaala Suez Canal mid waa kanaalkan Hormuz mid waa Bab Mandab midna waa malqa kan Indonesia ku yaala waxay dhaan check points ka dunida oo dhan gacantooda ku jiraan haday iyagu gacanta kuwan si dhaba ugu dhigaan dunida way kala gooyin karaan sida awgeed ninka raba inuu dunida ka tariyo iyo badaha dunida uu ka taliyo qadiyada dib aynu uga warabi doonaaye waa inuu check points ka gacanta ku dhigaa marka kuwa raba hatta le dhaqaalahan uma baahnin وان وهيسنا وحي هيستان ودمي وحي لين لكن انه منطقه حكمنا بان وباهنه قوله كله وحي لين حتى هدي منطقه لغا مارمو وحنا ربين موديل حضاره او كفي عنك ايغو انه صوبخو dadkani waxay leeyihiin xadaaro values leh iyaga xadaaradoodu waa technology laakiin value ma walato qofka bini'aadamka qiimo uma fadhiyo aan ahayn qaanuunka guud akhlaaqiyad iyo dadnimadii waa dhawat marka waxay leeyihiin marabno model aan ka ayaga ahayn inuu dunida ka muuqdo oo soo kan China iyo kuwan soo baxaya kuwan waxay leeyihiin tanaafus dhaqaalaha naga dhaxeeya laakiin xadaaro isku bahayno ma values kuma hayna bay leeyihiin لكن كوا كان هذا يصاب حام بيلين وفاليو عصبة الدنيا كسر كورنيا والسيستم كيجي كجديسن ولذلك أفكار تودرنا المكان نسقط صاد الرب بكل طوائفهم كوا متدينين تا كوا ملحدين تا كوا مركز قصة وضدرته وحيلين ما شاسين ضعيفة هتادن إنه وجرته العالم الإسلامي إنه ضعيفة هذا بدن إنه وجرته ما ربما مركا إن نكور رمض جبت أي جيستين أنت إلاكتي ده وحيابا ما أنت كده عياتي في ذا كاركتر ما كفلان والتاسو بلو تي في أدو قياس وحي كده عشرين إما كو كاميرا الله يسقوها يلا يسأركيو أيها وحا أركتين دوني ذا كده عيان ودتك مسلمين تعالوا قصمين يا تاسو عن دوني ذا تي في يا كاميرا يعتقو أركيس عشرين وحي كده عيسيدو إيجي يعني كتب التاريخ قاركود ما أخري كرتيد مركا دركتو وحيابها القرية صدح محاضرة نوعنا يقول قرآن لكن وحن شعلي إن أنت الدنبوردن كجورة آلامته ويا آلامته وواحد دريم إنسان وحميد الغور للمية وحينو جورينا محينو كجبي حكرينا أمال محرة شم وضع dadka in badan way qoosteen waxay leeyihiin nimankan inuu kuliyar way bamba haystaan kan bay haystaan maxaa idin kama hor iman kartaa la taagay afar shay ayaan rabaa markaa inaan taana ku soo koobo shayga koowaad wal i'timaadu ala Allah al-i'timaadu ala Allah Ilaahi subhanahu wa ta'ala inaynu baranno oo isaga ku tiirsanno كلبادنا وفهم السنن التاريخ وين إنه السنة القرآن كينوغا شيكية تاريخ بني آدم كي سيسو جديده وين إنه فهمنا كصدحاتنا واستشراف المستقبل وين إنه سهم الناس أضالنا وإجنا ودرسنا مستقبل كسيدة ونقكر هدين لبدا سيفي عنه فهمنا إنه والله بابا كويجا كرنا وحيجا هي مستقبل كوحينات الماما يو هدو قرآنية هدو سنية هيبة إيوه جغرافيا سياسية في العالم الإسلامي هنتدا وهيستو ديغان كمسلمين تو ديغان